heerkan horta sidiisa wuxuu soo jiray ilaa 2006 dadka Soomaaliyeedna wuxuu u yahay arrin aad iyo aad u muhiim ah gaar ahaan dadka naafada ah ama lixaadka la ama baahiyaha gaarka qaba wuxuuna u tarayaa waxyaabo aad iyo aad horumar u ah sida wadamada kale oo caalamka ay u saxiixeen oo kale ayaa in dowladda Soomaaliya u saxiixday farxad ayay u tahay dadka Soomaaliyeed ee naafada ah muddo 6 ilaa 7 sano ugu dambeysay dowladihii la soo dhaafay ayaan ka codsanaynay in xeerkan la saxiixo marka farxad ayay u tahay dadka Soomaaliyeed waa wax in muddo ah aan ku taamaynay oo maanta lagu guul gaaray oo aan helnay wixii aan raadinayna ay qayb ka tahay arrintan maxamedow mar haddii xeerkaasi haatan dowladdii federaalk ee Soomaaliya ay saxiixday muxuu ka bedelayaa xaaladii ay gudaha dalka Soomaaliya ku mutaysan jireen dadka naafada ah waa muhiim ah loona baahan yahay in dad badan fahmaan dowladda laftirkeedana fahamto xeerkan markii la saxiixo wuxuu leeyahay dhaqangelin wax la dhaho oo in la dhaqangeliyo loo baahan yahay waa qodobo tiro badan qodobadaas oo isugu jira arrimaha bulshada siyaasadda dhaqaalaha iyo dhaqanka ayuu isugu jiraa waxaana ugu weyn 3 mabaadi oo ah kor u qaadida iyo horumarinta xuquuqda naafada ilaalinta iyo dhowritaanka xuquuqda naafada iyo ugu dambayso ah xaqiijinta in dadka naafada ah ay la mid noqdaan bulshada inteeda kaleeto taas oo marka hoos imaanaysa in dadka naafada ah 4 qaybood oo marka hore aan ka hadlay arrimaha bulshada dhaqaalaha siyaasadda iyo dhaqanka ah in meel kasta lagu dabaqo oo dadka naafada ay helaan wax kasteeto oo bulshada kaleeto ay helaan haddii ahaleed waxbarashada oo ay noqoto waxbarasho loo sameeyahay dhaqaalaha oo noqdo dhaqaalo ay ka qayb qaadan karaan gaar ahaan shaqaalaysiinta ayaa aad u muhiim ah waxaa ka mid ah siyaasadda oo door muuqda inay ku yeeshaan la rabo waxa ugu weyn oo aadkii aadka ugu weyn oo qodobka ugu horeeya qodobada 2 iyo 3 iyo 4 ugu horeeya ku jira waxa ah la dagaalanka midabta koorka taasoo ah in dadka naafada ah Soomaaliyana hore loogu yaqaanay in dadka naafada ah ay ka maqan yihiin bulshada inteeda kale ay banaanka yihiin oo midabta koor oo ka jiray in midabta koorka la baabiyo mar haddii arrimahaas aad ka sheekaysay maxamedow ay ku jiraan xeerkan haatan dowladda federaalka ay saxiixday idinkana aad sheegtay inaad muddo dheer arrintaa ka soo shaqaynayseen halkaad haatan taagan tihiin xageed kaga dhaqaaqaysaan marka in sida xeer ku qoran guddi madax bannaan oo ka madax bannaan dowladda in la samayn doono dabagal ku sameeya xeerka dhaqangalkiisa iyo wakiil u gaar ah oo qaramada la shaqeyn doono sidoo kaleeto waxyaabaha haray sida wadooyinkii dhismayaashii dowladda xafiisyadii iskuuladii dhammaantood in lagu dabaqi doono ayagana sidoo kaleeto ay noqon doonaan wax dowladdu ay taxadar gaar ah ku fiiriso maadaama xeer caalami ay saxiixday oo qasabna noqonaya in dhaqan geliya xeerkaas